Baylotiyada diyaaradaha ayaa haysta fursado badan oo cajiib ah, taasi oo dadka caadiga ah badi aysan haysan, sida u kala safridda wadamo badan oo dunida daafaheeda ah, iyo inay dhulka ka daawan karaan fogaansho gaaraya 10,700 oo mitir, ayna u sii dheer tahay ixtiraam iyo wanaag ay ku dhex haystaan bulshada dhexdeeda. Intaas oo dhan oo jirta, haddana waxaa jira arrimo badan oo dadka caadiga ah samayn karaan, hase ahaatee aan loo oggolayn baylotiyada inta ay ku dhex jiraan shaqada duulinta diyaaradda. 10kaas arrimoodna waxaan idinkugu soo gudbinaynaa muuqaalkan. Haddaba si aan u bilowno muuqaalka, like saar, mahadsanid. Lambarka 1 waa inaan baylotada loo oggolayn inay la baxaan gar weyn. Taasina ma ahan mid la xiriirta muuqaalka bayloodka ama diinta uu haysto toone, hase ahaatee waa mid la xiriirta badqabka iyo nabadgelyada duulimaadka diyaaradda uu wadayo duuliyuhu. Waxaase loo oggol yahay duuliyaha inuu la bixi karo shaaribo iyo gar yar oo aan weynayn. Sababta loogu diido in baylodyadu garka la baxaan ayaa ah inay caqabad ku noqonayso ama aysan xiran karin qalabka neefsashada ee afka iyo sanka lagu xirto marka diyaaraddu la soo gudboonaato xaalado adag oo dadka la faro inay xirtaan qalabka oksijiinka. Haddii duuliyuhu xaaladaas oo kale xiran waayana qalabka oksijiinka, waxaa khatar gelaya diyaaradda iyo inta rakaab oo saaran. Qodobka 2 ayaa ah inay mamnuuc ka tahay baylotyada inay wax dareere ah ku dhex cabbaan shirka diyaaradda, ama si kale haddaan u dhigno qaybta hore ee laga wado diyaaradda. Looma oggola duuliyayaasha inay shirka diyaaradda ku dhex cabbaan wax dareere ah sida shaah, kofee ama biyo. Mamnuuciddan waxay timid kadib markii diyaarado badan khatar kala kulmeen cabitaanno baylodyadu cabbayeen oo ku dhex daatay shirka diyaaradda. Inta lagu jiro duulimaadka, baylotyada mamnuuc kama aha inay cabbaan wax dareere ah, hase ahaatee waxay ku khasban yihiin markii ay dareere cabbayaan inay ka soo baxaan qaybta hore ee shirka diyaaradda. Qodobka 3 waxaa ka mamnuuc ah baylotyada inay si joogto ah diyaaradda u wadaan ama u shaqeeyaan muddo ka badan 9 saac maalintii, halka habeenkii loo oggol yahay inay duulimaadka wadi karaan 8 saac oo xiriir ah. Qodobka 3 waxaa ka mamnuuc ah baylotyada inay si joogto ah diyaaradda u wadaan muddo ka badan 9 saac maalintii, halka habeenkii loo oggol yahay inay duulimaadka wadi karaan 8 saac oo xiriir ah. Taasina waa sababta diyaarad walba oo gelaysa safar dheer loo saaro 3 beelood si ay shaqada duulinta isugu badbedelaan. Sidoo kale, sharciga duulimaadyada ayaa u oggolaanaya duuliyayaasha wada diyaaradaha safarada dhaadheer inay qaadan karaan muddo kooban oo seexasho ah, iyagoo isku beddelaya mar kastana 2 ka mid ah soo jeedayso. Qodobka 4 baylotyada waxaa ka mamnuuc ah inay sheekeeyaan ama hadal badan ku hadlaan marka diyaaraddu kacayso ama degayso, siiba inta diyaaraddu ku duulayso jawi ka hooseeya 3,050 mitir. Maxaa yeelay badi shilalka diyaaraduhu waxay dhacaan marka diyaaraddu ku duulayso cabbir ka hooseeya intaas. Sidoo kale, waxaan loo oggolayn baylotyada inay dhaqdhaqaaq sameeyaan, sida in mid ka mid ah ka baxo qaybta laga wado diyaaradda muddada lagu jiro kicitaanka ama degidda diyaaradda. Qodobka 5 waxaa ka mamnuuca baylotyada dhegaysiga heesaha iyo daawashada muuqaalada xilliyada ay ku jiraan duulimaadyada. Maxaa yeelay dhegaysiga iyo daawashadu waxay ka mashquulinayaan duuliyayaasha shaqadooda. Haddii ay arrintaas sameeyaan, waxaa khatar gelaya naftooda, diyaaradda iyo rakaabka saaran. Waxaase loo oggol yahay inay daawan karaan ama dhegaysan karaan codad inta diyaaraddu taagan tahay aeroboortka ay ka duulayso. Qodobka 6 baylotyadu ma dooran karaan cuntada ay cunayaan xilliyada ay shaqada duulinta diyaaradda ka shaqaynayaan. Maxaa yeelay markii diyaaradda ay raacayaan 2 duuliye, haddii mid ka mid ah dalbado in loo keeno kalluun, duuliyaha labaad ma dalban karo cunto la mid ah midii uu dalbaday saaxiibkii safarka ku wehelinaya, waxaana ku khasaba inuu cuno cunto ka duwan sida digaag ama hilib, iyadoo aan la tixgelinayn dooqiisa. Arrintan ayaa loo sameeyaa si loo yareeyo khatarta caafimaad ee uga imaan karta duuliyayaasha cunidda hal cunto. Maxaa yeelay haddii cuntadaas labadoodu ku xanuunsadaan, waxaa diyaaradda soo food saaraysa khatar ay shil ku geli karto. Qodobka 7 baylood kasta ma dooran karo bayloodka la duulinaya diyaaradda ee waxaa u dooraya shirkadda diyaaradda leh, waxaana mamnuuc ah in baylood diido baylood kale inuu ku weheliyo safarka. Sidoo kale, markay timaado
arrinka baylotyada diyaaradda waxaan tixgelin lahayn nooca xiriir ee ka dhexeeya baylotyada sida inay yihiin dad farqi weyn u kala dhexeeyo sida da'da, qowmiyadda, jinsiyadda ama kalarkooda, sidoo kale yihiin saaxiibo ama dad col ah. waxaase taas beddelkeeda leh dookhashada duuliyaha shirkadda diyaaradda leh. Qodobka 8aad waxaa ka mamnuuc ah baylotyada isticmaalka agabyada elektarooniga ah inta lagu jiro duulimaadyada sida moobeelka iyo kombiyuutarka, siiba xilliyada diyaaraddu jawi hoose ku duulayso ee ka kacayso ayrobootyada ama degayso. Si la mid ah sidaas, waxaa arrintaas iyana laga dalbadaa rakaabka diyaaradda si looga fogaado jahwareer ku yimaada qalabka laga hago diyaaradda. Qodobka 9aad joogidda mar walba 2 qof shirka diyaaradda. waxaa waajib ku ah baylotyada mar walba in 2 qof joogaan shirka diyaaradda. haddiise mid ka mid ah 2 duuliyo oo diyaarad wada u baahda inuu ka soo baxo qaybta diyaaradda laga wado, waxaa waajib ku ah inuu u yeero kalkaaliyaasha ka dhex adeega diyaaradda mid ka mid ah si mar walba qof labaad ula joogo qofka diyaaradda wadaya, taasi oo qayb weyn ka ah ilaalinta badqabka diyaaradda iyo dadka saaran. Qodobka 10aad ee ugu dambeeya waa in rakaabku soo booqan karin qaybta shirka diyaaradda ee laga wado. waxaa ka mamnuuc ah baylotyada ogolaanshaha in qof rakaabka ka mid ah oo u soo dhowaado qaybta hore ee shirka diyaaradda laga wado. waxaase marar badan dhacda in dad caan ah, siyaasiyiin iyo fanaaniin leh ay booqdaan shirka diyaaradda, sidoo kale sawirro ku soo galaan, arrintaas oo shirkadaha diyaaraduhu ku ganaaxi karaan duuliyayaasha. Intaas waxaa noogu dhan muuqaalkii aan kaga hadlaynay 10 arrimood oo dadka shaqooyinka kala samayn karaan baylotyadana aan loo ogolayn. haddii aad ka heshay muuqaalka, like saar. haddii aad nagu cusub tahayna channelka subscribe saar, gambaleelkana furo si muuqaaladeedu kuu soo gaaraan mar kasta. mahadsanidin.